waxay wada saarnaayeen mootada nooca loo yaqaano bajaajta xilli ay marayeen agagaarka dabka islamarkaana uu jiray jaam ayaa la sheegay in askar saarneed gaari cabdibile ah in ay rasaas la tilmaamay inay ahayd dib furasho ay rideen ay haleeshay labadan ruux ee walaalaha ahaa zakariya isla goobta ayuu ku geeriyooday halka walaashii samiira dhaawac ahaan loogu soo qaaday isbitaalka inkastoo markii dambe ay u geeriyootay dhaawaca soo gaaray waxaa la sheegay in xilliga falku uu dhacayay casho ay u soo dooneen walaashooda oo xaamilo ahayd aabare anagu cadaalad sugi mayno dad naga horreeyaa waayeen cadaalad sugi mayno ilaahay samri imanan qaal kale ayaan idin haynaa dhacdooyinka xanuunka leh ee maanuuliba ka dhaca dalkeena Soomaaliya aad bay u fara badan yihiin inkastoo ay soo badanayaan cabashada ay muujinayaan dadka ay dhacdu saameysay walow dadka intooda badan ay hoosta ka xariiqeen in ay niyadda ku hayaan in aysan cadaalad helinin haddaba Zakariya iyo Samiira waxay ahaayeen laba walaalo oo markaasi lagu dilay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya xilli ay saarnaayeen bajaaj iyagoo markaasi casho u soo doonay gabar xaamilo ahayd oo iyaga la dhalatay haddaba waxaa la dilay gaari cabdibilaa oo ciidan saarnaa ciidankaasina la sheegay in ay wadada furanayeen laakiin ehelada Zakariya Samiira waxay ku adkaysteen in si bareera loo dilay Zakariya Maxamuud Xuseen iyo Samiira Maxamuud Xuseen haddaba ehelada ayaa tilmaamay in ay niyadda ku hayaan in aysan cadaalad helinin sababtuna ay ku sheegeen in dadkii iyaga ka horreeyay la dhibaateeyay dulmi fara badan lagu sameeyay ilaa iyo hadda ay cadaalad weysan yihiin haddaba Samiira ayaa da'deeda lagu sheegay 22 sano jir halka Zakariya da'diisa lagu sheegay 24 sano jir bajaaj ayay saarnaayeen waxayna marayeen isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho haddaba guud ahaan ehelada qaraabada iyo dadka dariska ayaa soo xoomay isbitaalka Daarushifa ee magaalada Muqdisho haddaba Zakariya ayaa ku dhintay goobta lagu dilay halka Samiirana dhaawac ahaan loo geeyay isbitaalka Daarushifa kadibna halkaasi ay ku geeriyootay haddaba waxay ahayd goob markaasi tiraayada ka muuqata aad yaabaysid maadaama ay ahaayeen laba ubax oo dalka u soo baxay xilligaasna ay ku mashquulsanaayeen caawinta gabar iyaga la dhalatay oo markaasi xaamilo ahayd haddaba waa xanuun inteeda kale guud ahaan ehelada iyo dadka markaasi dariska ayaa kaaga sheekeynaya siday ahaayeen Samiira iyo Zakariya inay ahaayeen laba markaasi walaalo oo aad isku jecel inkastoo qadarta iyo waqtigaba mararka qaarkood aysan kula tashanaynin haddaba waxaa la dareemayay buuq iyo sawaxan oo ku aadan isbitaalka Daarushifa aad loo soo buuxdhaafiyay halkaasi oo ahaa goobta la keenay labada walaalo ee xalay lagu dilay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya gaar ahaan isgoyska dabka haddaba ilaa iyo hadda laamaha amniga kama aysan hadlin dhacdadan xanuunka badan iyo weliba sida loo dilay Zakariya iyo weliba Samiira oo ahaa laba markaasi walaalo oo aad isku jecel kana dareemaysa sida markaasi labadooduba ay isku garabsanayeen caawinta gabar iyaga la dhalatay oo markaasi foolaheed sida ay eheladu sheegeen haddaba mid ka mid ah ehelada oo la hadashay warbaahinta ayaa waxa ay sheegtay in ay dareemayaan xanuunka tiiraanyada calooliyowga iyo go'ashada laakiin aysan niyadda ku haynin in ay maalin cadaalad heli doonaan maadaama dadkii iyaga ka horreeyay iyo hadda ay dulman yihiin dhiban yihiin maskaxdoodana ay kasii dhexguuxayso dhibaatooyinkii xanuunka badnaa ee loo geystay haddaba mahadhooyinka qaarkii mararka qaar kaama harto oo markasta ay kugu soo laabanaysaa haddaba waalidka dhalay Zakariya Samiira ayaa maanta dareemaya xanuun inteeda kale maadaama hal guri maanta laga wada aasayo laba meeda haddaba saaxiibayaal adiga ina daawanaya qaybta commentiina ugu soo qorta casida iyo sida markaasi aad u dareemayso xanuunka tiiraanyada leh adigoo markaasi la qaybsanaya ehelada Zakariya Maxamuud Xuseen iyo Samiira Maxamuud Xuseen haddaba dadka saaxiibada la Zakariya iyo Samiira ayaa kaga sheekeynaya wanaaga iyo weliba sida markaasi u ahaayeen dad qalbiyo wanaagsan hami fog kale nolosha laakiin habeennimadii xalay heeda ay soo idlaatay noloshii waqtigii koobnaa ee ku lahaayeen adduunka in ay ku noolaadaan haddaba saaxiibayaal
ilaa iyo hadda laamaha amniga kama aysan hadlin dhacdadan xanuunka badan ee xalay ka dhacday magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya waana caado in mararka qaarkood gaari cabdibillaah ama gawaarida ay saaran yihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya marka ay damcaan inay wadada maraan xilliyada jaamka waxa ay sameeyaan in ay xabado kor u ridaan iyagoo ujeedkoodu yahay in ay wadada ku furtaan da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 30 jir waxay wada saarnaayeen mootada nooca loo yaqaan bajaajta xilli ay marayeen agagaarka dabka isla markaana uu jiray jaam ayaa la sheegay in askar saarneed gaari cabdibila ah in ay rasaas la tilmaamay inay ahayd dib furasho ay rideen ay haleeshay labadan ruux ee walaalaha ahaa Zakariya isla goobta ayuu ku geeriyooday halka walaashii Samiira dhaawac ahaan loogu soo qaaday isbitaalka inkastoo markii dambe ay u geeriyootay dhaawac soo gaaray waxaa la sheegay in xilliga falku uu dhacayay casho ay u soo dooneen walaashooda oo xaamil ahayd anagu cadaalad sugimayno dad naga horeeya waayeen cadaalad sugimayno ilaahay samri imanan siinayna cadaalad ku yana naga horeeya waayeen anagu cadaalad sugimayno arkina mayno Zakariya iyo Samiiro waxay ahaayeen laba walaalo ah waxa ay ku geeriyoodeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kadib markii rasaas la hubiyay mootada nooca loo yaqaan bajaajta oo ay wada saarnaayeen iyaga oo ku guda jira caawinta gabar walaashood ah oo la sheegay in iyadu ay tahay xaamilo waxaan idin soo gudbin doonaa warar ku saabsan dhacdadaasi halka ay ka dhacday iyo sidoo kale geeridooda da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 30 jir waxay wada saarnaayeen mootada nooca loo yaqaan bajaajta xilli ay marayeen agagaarka dabka isla markaana uu jiray jaam ayaa la sheegay in askar saarneed gaari cabdibila ah in ay rasaas la tilmaamay inay ahayd dib furasho ay rideen ay haleeshay labadan ruux ee walaalaha ahaa Zakariya Maxamuud Xuseen iyo Samiira Maxamuud Xuseen waxaa la sheegay in xabadu ay ka haleeshay dhinaca maskaxda Zakariya isla goobta ayuu ku geeriyooday halka walaashii Samiira dhaawac ahaan loogu soo qaaday isbitaalka inkastoo markii dambe ay u geeriyootay dhaawac soo gaaray waxaa la sheegay in xilliga falku uu dhacayay casho ay u soo dooneen walaashooda oo xaamil ahayd dad aad u fara badan oo isugu jira ehelo xubno ka mid ah qoyska iyo asxaab ayaa soo buuxdhaafiyay isbitaalka Daarushifa kuwaasi oo ka tiiraanyasna falka dhacay waxaana indhahooda ka muuqanayay murugo iyo tiiraanyo mid ka mid ah ehelada marxuumiinta ahda ay ku geeriyoodeen labadan walaalaha ah waxaan ka ogahay waxa waaye ilmaha inay gabar walaashooda foole adeeg u dooneen adeegii markay u dooneen mootaday raaceen lagu dhex dilay guriga naga joogno soo gaaro la ilmihi uga meeday meesha sidii aan ku soo kala marka sidee marka u dhinteen sidee wax u gaareen sidee u dhinteen labadaba madaxay wata la xabad kas loo dhiftana waa kama xataa ma kan ii sheegay yaa ku dhiftay macnaha ama xabad iska socda ku dhacday baabuur cabdibillaah niman saarana ku dhiftay oo dileen ilmaha kas hadii marayaan dabkay marayaan Zakariya Maxamuud Xuseen aliyaada gabadhana Samiira Maxamuud Xuseen aliyaada da'dooda wiilku wuxuu jiraa 24 sano gabadhana 22 sano jirta marka hadda bal ka waran iyaga sidee u kala dambeeyeen dhimashada gabadhaas dambeeyeen jaal saaga camal ay ka dambeeyeen wiilka horeey wiilka nafta ku kala dhacay anagu cadaalad sugimayno dad naga horeeya waayeen cadaalad sugimayno ilaahay samri imanan siinayna cadaalad ku yana naga horeeya waayeen anagu cadaalad sugimayno arkina mayno laamaha ammaanka oo aan la xiriirnay aysan inoo suuragelin
in aan ka helno xog ku saabsan dhacdadan naxdinta leh. بيان هذا نقول عصبتين سبسكرايب ده جنب لكن فرصة سيدي سجاران وحيابا حسها بدن مركز عن صارقنا حتى تخلين ولا جوتنا ماذا حد نوس هارنتين دليل أمام بقادين تلي صالح هذا إنه هسنا قيب تكون منتين وغرب واندين